السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الكسدود استي والشانل ما أنت حسمين هيلب الفورنا ولوك فورني لوك تو كنا هدرتان داوشة وعن وحاوبانا حواجي سلايم إيشلي واي وهتسبع ديسة iyo maxayd paprika waa kasasagana maraq maajiyar oo qudaarta ah kabsarituun iyo garam masala waa mid hilibka lagu daro waa kaasaas oo shiidan iyo yogurtkaas u baahanahay hadda intaasaan isku dari doonaa hilibka soo maasha Allah hilib fiican oo soo baxo foornada oo aad u macaan taste leh halka kulliga saxankaas isugu geynaa si fiican insha Allah aan u qasi doonaa si uu noqdo yani pasty hilibka wax la si loo maris fiican 3 qaado yoogada that's it marka maasha Allah hilibka waa la kari karaa ay nooc saarta qof walba kari karaa laakiin marmar waxa iska fiican in ovenka iska geliso hilibka dhan oo soo wato ama chickenka oo soo wato anything markaas xoogaa it will look nice ما شاء الله كاسا قروحدا يوغدكي iyo kabsartii iyo xawaajidii xidhanka is dhex galeen deelugu laag soos la cuni karo ma hayno ما شاء الله hadii hilibkii waxa waaye waa inaan soo diyaarsado oo jeexjeexo hilibka markaa midida ku jeexjeexdo si fiican oo macnaha waxa xawaashidii iyo alaabtii waxa isku darsataa gudaha si fiican uga galaayo uuna ku bislaana hilibkii ilaa iyo maxay dabkii gudaha gaarayo marka saas fiican in la jeexjeexo si dhacaankiin gudaha ugu gal everything ma sha Allah sidaas u jarjaray macnaha waa sarsaray qof walba sida u yaqaano hadana si oo gudub aan u saray taasay hadarta marka waxaan saliid yar waxaan ku darsanaa maxay ahayd sooskii diyaarsanaa saliid yar aan ku daray then ilaa gudaha meel kasta aan ka marin doona insha Allah si fiican ugu kala gaaro kori hoos daawasho wacan waa kan ilaa gudaha waa inaad ka gaarsiisaa markii oo la jarjaro wuxuu iisi ku yahay gudaha ka galgalay yani soos wixii aan sameeyay xawaashidii gudaha ka galay hadii kal korka kaliya oo aadi lahaa korka duu aadan hadhow markii oo bislaanayo ka yani uu ka dhalaali lahaa soo sidana fiican koriyaas meel kasta waa kana hadirtaan ofinkan gelinayna hal saac ina la kariyo way because lugta hilibkeeda iska taqaanin waqti badan qaata 1 hour ofinka soo gelina 1 hour marka ofinka noogu jirto waxaan sii karsanaa bariis yar marka bariiska waa bariis aan hal saac biyo la soo dhigay waa sela rice iyo basashi iyo qorfihii iyo kabsar iyo waa toon yar iyo maxay isla soo waxay iyo xawaash oo soo shiiday iyo maxay ahayd safaraan iyo caanaha coconut-ka oo hal koob ah marka bariis qof walba si uu karsada ma sha Allah shan iyo toban nooc ka badan loo kariyaa bariis laakiin aan wax iska simple aan karina bariiska caadiga oo iska simple ka ah kada shaqan mana waxa raasi hilibkii ofinka wax ula galiyo ahaan macnaha ma ahna bariis ahaan isma important qasab ma ahna bariis ku wax harta la gali karta ofinka laakiin bariiska siiraan u sameysana xawaashkii xidhan oo qalaysmeen ma sha Allah hadirtaan ka bariis ku darsadona insha Allah dambiyihiina waa sii karkarsaday biyo maraq ma karinayo waa biyo aan soo karkari caadiga aan u soo boil gareey biyaha ku aad gareena iyo maraq maajiyar iyo caanihi coconut-kan ku dara wax kale kuma daray coconut-ka bariiska waxa ku fiican yihiin macnaha waa carfiya wuxuuna ka dhigaa maxay bariiska cad oo ka dhigaa marka dadka bariiska inuu cad yahay jecel oo kale aad u cadeena ma sha Allah darsi hadhoodii kala raax ugu dars hada saxfaraanka siran ku darsanaa saxfaraanka ma sha Allah is good bariiskan waa carfiya alag caraftiisa caraf oo saaid oo leeyahay waliba macaan waa kana laftii hadii hilibkii waa biseel waa diyaar bariiskii aan soo guray aan kor saaray almuuniyana hada ku daboola hadi ilaa qadar 5 daqiiqo ah aan hoos ofinka ku celina hilibkii ma sha Allah isku noqdo qatar ah asoo wixii doono sometimes weekendigo kale hilib mar wal saga baahan week hal mar la saga tuurto ma sha Allah
5 daqiiqo kaliya maasha Allah haduu ka soo baxay hada almuuniyinka balanka qaadan arko waa kan maasha Allah asagoo diyaar waa mahadsantiin walaalayaal inta already subscribe ka jazakallah khair waa mahadsantiin sida quruxda badan channelka ugu xirantiin inta subscribe please subscribe like and share and comment waxa artiisa weydiiyay waa mahadsantiin